kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda iyo qodobadii ugu dambeeyay dunida iyo wararkii ka gaan caalamka idin keeni jirnay daawadayaal qodobadaad maanta ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha xilka ku soo socday dalkaasi Pakistan oo markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta kana hadlay sida dalka Pakistan u garab taagan yahay dalka Turkiga gabadh Soomaaliyeed oo iyaduna ku guuleysatay isreebka in ay u tartanto doorashada ugu dambeysay ee Congress dhanka kalena wada hadaladii lagu badbaadinayay dhaqaalaha dalkaasi Turkiga oo meel wanaagsan maraya iyadoo lacagta liiradu ay dib u riixday dollarka madaxweynaha Turkiga wuxuu ku dhawaaqay in qalabka elektarooniga ee dalka Mareykanka oo dhan laga mamnuucayo dalka Turkiga Mareykankuna wuxuu ka digay in ay bilow tahay waxay ugu yeedheen talaabooyin adag oo ay Turkiga ka qaadayaan waxayna maalmo u qabteen inay ku sidaayaan wadaadka lagu haysto dalkaasi qodobo kale ayaa kamid ah oo ay kamid tahay garsoorka Soomaaliya oo qaramada midoobay markii ugu horeysay ay wax u qabanayso ama wax kala qabanayso dawladda dhexe qodobadaas iyo kuwa kale dacaan ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa 15 bishii 2018 waa mar kale iyo barnaamijkeena falaqaynta dunida waa maalmo Arbaca iyadoo ay 5 sanadood ka soo wareegtay kolkii boqolaalka qof lagu xasuuqay masaajidkii Rabaacul Cadawiya loo jiray ee magaalada Qaahira magaalada ku agtaala ee dadka dalkaasi Masar ayaa wax loo dhaleelay lagu tilmaamay booqashada sanad guuradii shanaad uu ku tagay madaxweyne Cabdifataax al-Siisi magaalada loo dalxiis tago ee dalkaasi Sacuudi Carabiya Nom oo uu ku soo dhaweeyay boqor Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud iyo wiilkiisa Amir Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis dadka Carbeed ayaa si weyn uga carooday booqashada heerka sare ahayd sida weyn loo qurxiyay lagu soo dhaweeyay gacan ku dhiig leh baa la yiri Cabdifataax al-Siisi waa sida warbaahinta bulshadu ay qorayso dadka Carbeed ee qurbaha ku badan ee ku dhaleelaya booqashada boqorku uu markaasi ku soo dhaweeyay Cabdifataax al-Siisi iyadoo dadkii heelada ahaa ay la murugaysan yihiin 5 sanadood kadib xasuuqaas oo aan cidna loo soo xirin isla markaana saraakiishii ka dambeysay la sheegay in xataa la siiyay xasaanad ka mamnuucaysa in maxkamad la horkeeno ayaa boqor Salmaan bin Cabdilcasiis war qoraal ah oo uu ka soo saaray magaalada Nom ee loo dalxiis tago isla markaana la aaminsan yahay in uu MBS ka wado mashruuca la yiri 500 oo bilyan oo dollar ayaa lagu khasri doonaa si halkaasi looga soo saaro looga dhigo magaalo loo dalxiis tago lagu soo dhaweeyay al-Siisi boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa wuxuu sheegay in labada dal ee hogaamiyaha dalka aan walaalahan ahay ee Carbeed baa leeyahay jamhuuriyadda Masar ee Carbeed gacmo Efren lagu soo dhaweeyay magaaladaasi isla markaana laga wada hadli doona baa leeyahay xiriirka walaaltinimo ee qotada dheer ee labada dal u dhaxeeya ayaa lagu yiri warka qoraalka ee laga soo saaray wakaaladda wararka ee Saudi Agency la yiraahdo Saudi Press Agency la yiraahdo dalkaasi Saudi Arabia afkiisa ku hadasha sawirada iyo soo dhaweynta ayaa la arkay iyadoo si heer sare ah loo soo dhaweeyay Cabdifataax al-Siisi oo isagu ku labisnaa dharka suudka ah halka boqor Salmaan bin Cabdilcasiis iyo wiilkiisa Amir Maxamed bin Salmaan ayaguna ay ku labisnaayeen dharka dhaqanka waa dalkaas Saudi Arabia ee khamiiska iyo ciidamada guduudan ee dusha lagaga xiro cigaalka madow waxa ay u muuqatay in markaasi marxabeyn xooggan iyo soo dhaweyn yaab leh loo sameeyay hase yeeshee dadkii heeladooda lagu xasuuqay Rabaa ayaa ayaguna la murugsan 5 sano kadib in aan ilaahay hadda hal qof loo soo xidhin intii ka badneed 800 ee ruux ee halka habeen lagu gumaaday halkaasi ayadoo ka dambeysay kadib markii dadkaasi ay diideen inay ka baxaan halkaasi kolkii Cabdifataax al-Siisi uu jagadi ka tooray madaxweynihii sida dimuqraadiyadda loo soo doortay abi taariikhda dalkaasi ee Maxamed Morsi warar dadka cambaareeya dhaqanka iyo xukunka adag ee Cabdifataax al-Siisi ayaa waxay ku tilmaameen in ay tahay wax muujinaya in Saudi Arabia ay la ahayd ama raali ka ahayd dhibaatada loo geystay ay yiraahdeen dadka reer Masar kolka la eego soo dhaweynta loo sameeyay Mr. al-Siisi ee magaalada Nom halkaad nagala socotaan waa warbixino dhinaca diblomaasiyadda iyo wararkii ugu dambeeyay dunida qaramada midoobay ayaa waxa guddi ka socda ay heshiis la saxeexdeen dawladda Soomaaliya wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa shalay kula saxeexday heshiis ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk madaxa UNDP iyo mas'uuliyiin kale oo ayagu sheegay in ay mashruucan
uu ka caawin doono dalka Soomaaliyeed baa leeyahay dib u dhis garsoor heer sare ah. Peter de Klerk ku-xigeenka ergeyga UN-ka u qaabilsan Soomaaliya ayaa barnaamijka uga mahad celiyay qaar ka mid ah dowladaha deeq-bixiyaasha caalamka iyo dhammaan dhinacyada gacanta ka geystay. Wuxuuna war qoraal oo soo saaray yiri waxaana sidoo kale u mahad celinayaa warbaahinta caalamka iyo qaar ka mid ah dowladaha deeqaha bixiya buuri sida Sweden, Netherlands iyo Midowga Yurub oo door weyn ku lahaa buuri barnaamijka suurtagelintiisa. Hay'ado badan oo UN-ka ayaa ka qayb qaatay sidoo kale waxaa door weyn ku leh buuri xafiiska UN-ka ee Soomaaliya iyo UNDP ayuu sheegay Mr. Klerk. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid lagu horumarinayo garsoorka dalka una qayb ka qaadan doona dhismaha hay'adaha cadaaladda dalka sida dhismaha maxkamadaha dastuuriga guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ururka qareenada dalka iyo dhinacyo kale oo isagoo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay. wuxuu yiri qorshahan waxa qayb ka qaadan doona dhismaha bahda cadaaladda si gaar ah hay'adda garsoorka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed isugu jira. waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dhinacyada gacanta ka geystay UN-ka oo dhan qaasatan xafiiska ugu weyn UNISOM iyo UNDP waxa uu naga saacidi doonaa barnaamijkan dhismaha hay'ado ay kamid yihiin maxkamadihii iyo waliba inaanu si dhow ula dagaalanno ayuu yiri oo hangool fararle ku qabano dhaqdhaqaaqa musuqmaasuqa iyo lacag shubashada. wasiirka cadaaladda ayaa sidoo kale sheegay in ujeedku yahay helidda garsoor hufan oo bulshadu ku kalsoonaan karto iyada oo dhawaanahan ay socotay dadaalo dib u habeyn loogu sameynayo nidaamka cadaaladda dalka waxaana xilalkii laga qaaday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maxkamadda iyo garsoorayaal. dalka Soomaaliya ayaa aysan ka jirin maxkamad dastuuri ah oo la isku haleyn karo tan iyo intii burburku halkaas ka dhacay. dowladda ayaa hadeerta ka baaraandegaysa garsoor adag inay dalka u sameyso sida la aaminsan yahayna waa mid ka mid ah shaqooyinka waaweyn ee u yaala dowladda Soomaaliya oo hawlo badan ay sugayaan. halkaan nagala socotaan waa warbixinii dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh intaynan u gelin warar aad u badan oo ku saabsan dalka Turkiga iyo dalka Mareykanka oo xaaladoodii cirka isku sii shareertay isla markaana marba marka dambaysa ay u muuqato inay sii xumaanayso bal aynu eegno suuqyada Asia oo saameyn xooggan uu ku yeeshay liicitaankii lacagta liirada ayadoo oo markii ugu horeysay dalalka oo dhan ay qireen in Turkigu uu yahay mid ka mid ah matoorada ama injiinka dalalka Europe iyo Asia oo ah laf dhabarta xagga dhaqaalaha. suuqyada waaweyn ee dalalka ay ka mid yihiin South Korea, Japan, Australia iyo Shiinaha ayaa ruxmay ayaga oo ay ruxankooduna uu gaaray suuqa weyn ee dalka Mareykanka Wall Street oo asaguna dollarku markii ugu horeysay uu leecay. wararka ayaa waxa ay sheegayaan ka imaanaya suuqa weyn ee dalka Japan ee Nikkei la yiraahdo in uu hoos u dhac weyn ku yimid iyada oo dowladda dalka Japan ay tudhiba ku dhawaaqday in kor loo qaadayo taageerada lacagta yen kadib markii lacagta liirada ee dalkaasi ay dhacday. suuqa dalka Australia ayaa asaguna ruxan xooggan laga dareemay saalisadii goordame iyada oo cabsi xooggan ay soo food saartay dadka maalgashadayaasha oo sheegay in ay ciladu ka timid dhinaca lacagta liirada oo xiriir weyn la leh dalka Turkiga xiriir weyn la leh dhammaan dunida dhaqaalaheedana miisaan weyn ka ah. suuqa Nikkei ee dalkaasi Japan ayaa waxay sheegeen inay kor u qaadayaan waxa ay ugu yeedheen kor qaadista lacagta yen oo boqolkiiba eber 4 ayadu ruxantay ayay sheegeen. halka South Korea ama Koonfurta Koreana ay sheegtay in lacagtoodu ay boqolkiiba 12 ay ruxan weyn soo gaaray balse waxay sheegeen inay la gaarayaan taageero xooggan oo bahasan. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xaaladaha dalalka Mareykanka iyo dalka Turkiga marba marka dambeysay cirka isku sii shareerayso. suuqa Wall Street ee dalka Mareykanka ayaa iyagu goordama xaqiijiyay in lacagta dollarku ay wali hoggaanka hayso isla markaana aysan ruxmi doonin. Shiinaha ayaa iyaguna sheegay in lacagtooda yen-ka ee Shiinaha ay iyadana dhibaato ay soo food saartay oo kooban iyagoo ka digay in ay qaadi doonaan lacagta dollarka dagaal ka dhana haddii Mareykanka uu jooji waayo waxay ugu yeedheen daandaansiga dhaqaalaha ee dunida uu ka bilaabay. dalka Faransiiska ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay xoojinayaan dhaqaalahooda kadib weerarka culus ee ka yimid baa dal NATO ka tirsan isla markaana ku socdo dal kale NATO adduunka oo dhan waxa soo food saartay cawaaqib xumo weyn iyo cabsi xooggan iyadoo ay muuqanayso in dhaqaalaha Mareykanku uu doonayo inuu dagaal dhinaca dhaqaalaha dunida ku qaado inuu u muuqdo mid aan kala reebaynin dalalka xulufada iyo kuwan xulufada ahayn. dalka Pakistan ra'iisul wasaaraha ku sii socda talada inuu qabsado maalmaha soo socda ahaa ninka sida weyn u ciyaari jiray kubadda loo yaqaan cricketka Imran Khan ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu kaga dhawaaqay in dalkiisu uu garab taagan yahay heel iyo hooba dalka Pakistan. wuxuu yiraahdaa ku hadlaya afka shacabka Pakistan iyo naftayda
waxaan doonayaa inaan halkan uga cadeeyo madaxweyne Erdogan iyo dadka reer Turkiga inay ogaadaan inaanu anagu mar walba horta u duceynayno kow mar labaad inaanu wax kasta oo dhaqaalahooda ah oo ay ku jiraan halgan aanu ku kalsoonahay in ay guuleysanayaan sidii taariikhda dagaal iyo tan dhaqaale ee lagu soo qaado Turkiga waligood lagama guuleystaan maxaa yeelay waxay aaminaan kol walba eebi sidaa daraadeed waxaan u sheegayaa mar kale ama aan u xaqiijinayaa inaan hoosta ka xariiqayo in dhaqaalaha dalka Turkigu uu ka mid yahay dhaqaalaha dalalka hogaanka dhaqaale ee caalamka number 1 ama xagga sare kaga jira sida daraadeed shacabka reer Pakistan iyo dawladda Pakistan waxay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin dadka reer Turkiga madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa waxaanan doonayaa inaan idii xaqiijiyo inaan iraahdo wada hawsha ilaa iyo inta aad guuleysanaysan anagoo og inaad ka guuleysanaysan dhanka kalena dawladda Pakistan ayaa wasiirka arrimaha dibadda oo shalay hore u hadlay haddana maanta wuxuu ku celiyay in dalkiisu uu u arko talaabooyinka Mareykanku qaadayo inay yihiin kuwa daandaansi ku ah dalalka qaar wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Pakistan in dalkiisu uusan qayeeli doonin in maalin walba dal lagu duulo dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca military sida daraadeedna wuxuu sheegay in go'aamada gaarka ah ee jajoobka u muuqda Mareykanka ka imaanaya aysan farxad gelinaynin dalalka taxaalufka ah sida daraadeedna wuxuu sheegay in Islamabad ay kolowlad garab taagan tahay Ankara wuxuu ka digay in dawladda dalkaasi Mareykanku ay ku dhiirato in ay marba dal tijaabiso halka nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda daawada qiimaha qaybta labaad iyo wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda hamogaanada daqiiqadaha soo socda